سود دوادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلام أصحاب تقاليقا كسود دوادا maanta iyo maalin cusub maalinba waji cusub adduunyadana waji ma jira wanaag ma jira xumaan le faaftay ma hayna maxay yihiin saaxiibada maxay rabaan saaxiibada maxay ahayd dugaan la'aanta maxay ahayd dareen la'aanta maxay ahayd damiir xumada maxay ahayd hooyooyinka dareen la'aanta ku jirto xanuunka ku jiro xuqdiga ku jiro xaasidnimada ku jirto maxaa intaasoo dhan xuqdi iyo xaasidnimo yaa iyo xumaan yaa aniga walaashaydii macaaneeley haddaana adiga kula hadlin oo ku dhiin kugu nafisin saana ay haysato dhibkaana ay haysto xanuunkaana ay haayo haddaanan ku dhihin yaan kale oo sheegaa dhibkayga walaasheeyey haddaan ku yidhaaho walaalay gacliso waxaan islanaha dad muslina waxaan islanaha dad soomaali ah waxaan islanaha dad isku jinsiyad ah isku diina isku af ah haddaan ku yidhaaho abbaayo yaa dhibaatadaana ay haysato xanuunkaana ay haysto xaq baa u leedahay inaa igu cayso xaq baa ugu leedahay inaa magacyo iigu bixiso xaq baa u leedahay inaa aniga ii aflagaadayso waa maya inaa anigoo iska hadlaayo iduubto isoo dhigto igu cayso dhibaatada aniga i haysato aniganoo xanuunsan macnaha dhibaataysan xanuun i haayo waxaan ku dhahay dhibaato i haysato qalbiga i gubanaayo qofta markay xanuunsan tahay qalbigeena ma koontaroosho dhibaatada ma koontarooli karto qofta markuu dhibka ka bato maskaxdeeda taa ma ahan isma koontarooli karto xaq maa u leedahay inaa anoo dhibkayga kuu sheegtay kuu soo gudbiyey dhibaatada i haysato amba diris ila ahaw amba dadaa walaalnimo isku barana ahaw amba walaashay ahaw saa doontaba ahaw ina aniga cod iga duubto itilaaho xildhibaanada saanay u taallaa saanay ahaa jirtay lacala markay maaragtay tiraaho iyadoo la hadlayso qof waxba isku gelin amba daday saaxiibo ahaa jireen amba daday isbarteen la hadlayso waxaan arkay iyadoo dhuudhuumanayso ninka wuxuu aga carariyey ninay hoos ka shukaasi jirtay adinaa ku cadday karto gabaray sheekada ulujeedadeeda waxay tahay walaalnimada soomaaliyeed ma in cod leeska duubaa oo leesku rakaateeyo ma aniga magacyada ii bixisid oo itiraahiid qabiil hebel anigoo kale hadda magaca lagu yeeraa ma rabo meesha inaan ka sheego magac caan ah waa is ogtihiin magac caan ah oo waxaa jiro aniga laygugu yeero korkana layga saaray dadka magacyaha loo bixinayo inaysan raalli ka ahaynin ma ogtihiin walaasha haddaa xasado maxaa heshaa bal waxaa heshiin xaasidnimada aad ka heshiin iisoo sheega
maalin maalmaha kamid ah waxay dhacday anagoo qol saaran waxaa noo imaaday gabar walaal ah waxay ku tiri walaalayaalow su-aalayna weydiinaa waxay tiri wiilkayga dhaqan celinaan geeyey fiiriyaa ma qarihaynin waxay tiri wiilkayga dhaqan celinaan geeyey dhaqan celinta ilmaha la geeyo way fiican tahay dhaqan celinta ilmaha hala geysto waan mahadna ma aamusi kari moogta cangalad qofta markay laqda ma aamusi karto allow nasraa la gaarsiiyo cangalad laqda iraa keentay marka waxaa iri walaalay gacaliso dhaqan celin wax fiican ma ahan wiilkaada inaad la jirto iyo inaad haysato labada wixii u dhexeeya dhib waay waxay tiri dhaqan celinku waa fiican yahay nabadiisa waaye jugjug waaye waxaan ku iri kaali iska arag war like saarahoo sheer dhahoo ilaahay ka cabsadoo commentigana ku tuura waxay dhahday maxay ahaaday ra'ligiina waxaan ku iri walaalay gacaliso ani dhaqan celinta ma aaminsan waxay tiri dhaqan celintu waa fiicanta okay gabartii horta lama dhihi karo qofta adoona guulaysanin hadda lacala youtube-ka maxaa ka heshaa dhahan dadka ma dhihi karaa anoo guulaysa waa guulaysta gabagabadii markaan ilaahay hadduu irsaaqad iga siinayo asaa-og hadduu irsaaqad iga siinayna sharcii tahayna ilaahayba iima keeno hadday laakiin kheyr ii yahay ilaahay ha ii sahlo hadduu kheyr ii ahaynina ilaahay hay dhaafiyo waxaa jirta waxyaabo loo ordo laakiin aada ogeyn adiga sharmay ku yihiin mase kheyray ku yihiin taas ma sheegi karta marka dadka waxaa aaminsanahay inaan waxya kasto waxaa jira wax fiican adiga wax fiican aa u malayso laakiin adiga lagaa celinayo laakiin u malaysid in adiga adduunkii oo dhan lagaa naqsaday murug kurbo madax xanuun waxaan ku dhahay walwal waxaan ku dhahay stress aad qaadayso dhayso alla waxaan ku waaye see ku waayi karaa waxaa i heli waaye nasiib xun badanayaa inay shar ku yihiin lagama yaabo aana adiga calaf ula haynin oo adiga shar lagaa celaayo yaa anaka waxa waaye ma ogaa karno wixii kheyr nooe wixii shar nooe number 2 xoog aan wax ku raadinaa kasoo tag gabadhi oo calaacalayso aan arkay waxay tiri dhibaata ay gaarta jaba ay gaaray waa dhibtooday cunugayga waa layga garaacay cagaha laga tumo intaa lagu tumo barta dhaqan celinkaa lagu tumo soomaaliyey